الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إلهي سبحانه وتعالى يريني محمد ومدواني وأنا waxay fici doontaa dadka muuminiinta ah. Salaajigeed walaalayaal qof kasta oo markaa muslina waxaa ku waajiba inuu qofka munkarka iyo xumaanta ka reebo. Suuina yiri nabigeena alayhi salaatu wassalaam: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. waxa uu yiri nabi maxamed kiina xumaan arkaa gacanta wax kaga qabto, gacanta ka wax kaga qaban kari waaya carabka markaa kaga qabto, carabka kii wax kaga qaban kari waayana maxay kaga qabto qalbiga ka nac, qalbiga nacaasna wax ku tilmaamay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu yahay halka iimaanka u hooseeyo. marka walaalayaal ilaahay idin barakeeyo subhanahu wa ta'ala. qof kastaba waxaan leenahay dadka wanaaga faro xumaanta ka nahi. ilaahayna subhanahu wa ta'ala taa inuu amaano wuxuu yiri: kullu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. waxaa tii umad la soo saaro umadu khayr badan, khayrkan waxaan ku mudanay wanaaga in isfarno xumaantana iska nahino. salaajigeed qof kasta oo daawanaya oo markaa fiidiyoga daawanaya waxaan leeyahay walaalayaal in dadka wanaaga farno xumaana ka reebino aynu faafino markaa fiidiyoga. waa anigoo ah maxamed cabdikariim maxamed xikmaawi. waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.